bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacano wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad dunida ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad oo goorahan oo kale aynu idiin soo gudbinno qodobada maanta aad daawo doontaan waxaa ugu waaweyn dowladda soomaaliya oo mar kale ballanqaad muhiima ka heshay dalka turkiga madaxweynaha soomaaliya oo dhiggiisa Kenya u sheegay in dhanka amniga ay ka caawin doonaan kadib weerarkii maalin ka hor ka dhacay hotel ku yaal magaalada Nairobi sirdoonka reer galbeedka oo shaaciyay xog cusub weerarkii talaadadii ka dhacay Nairobi waxaa ka jira in hay'adaha amniga Kenya lagu wargeliyay abaabulka weerarkaas saraakiil amni oo lagu dhagan yahay iyo wararkii ugu dambeeyay xogta weerarkaas ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale xaafadda Soomaalida ee Islii ayaa lagu qabtay nin looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa fulinta weerarkaasi qatar oo taageero militari siisay Soomaaliya sanad ciidan iyo gaadiidkii ugu badnaa oo lagu wareejiyay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya oo diyaar garooba qodobadaas iyo kuwa kale oo aynu idinku soo gudbino barnaamijka ku soo dhawow Dilaal abka Dilaal waxa uu ka caawinayaa inaad wax iska iibiso ama aad iibsato adigoo gurigaaga jooga si fudud isaga iibi geli sawirka shayga aad iibinayso geli faahfaahinta shayga aad iibsanayso ku dhufo post la hadal iibsadaha ama iibiyaha adigoo isticmaalaya qaybta wada hadalka lana wadaag sawirro iyo location-ka ka dejiso abka Dilaal Google Play Store mar kale kulanti wanaagsan daawadayaal waa 17ka bisha koowaad ee January sanada 2018 maalinimo Khamiisa haddaynu ku bilaawno barnaamijka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhankiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu u sheegay inay ka caawin doonaan dhanka amniga kadib markii maalin ka hor weerar qorsheysan uu ka dhacay hotel ku yaal magaalada Nairobi ee dalka Kenya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya oo qadka telefoonka kula hadlay Uhuru Kenyatta madaxweynaha Kenya ayaa waxa uu sheegay inay ka qayb qaadan doonto dowladda Soomaaliya sidii looga shaqeyn lahaa amniga gobolka isla markaana Kenya dhanka ammaanka ay ka taageeri doonaan waxaan saaka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta waxaan xilligan adag garab taaganahay Kenya dowladda Soomaaliya waxay mar walba diyaar u tahay inay dalalka deriska kala shaqeyso xoojinta baabi'inta iyo ka guuleysiga argagixisada ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Farmaajo oo sii hadlay waxa uu tilmaamay inay muhiim tahay wadamada gobolku inay iska kaashadaan qatarta shabaab si looga nabad galo abaabulada amniga ka dhanka oo inta badan ay sameeyaan in ka badan 12 qof ayaa weerarkii shabaab ay ku qaadeen hotel ku yaal magaalada Nairobi ku nafwaay kuwaas oo ay qayb ka noqdeen dad reer galbeed dhanka kale sirdoonka reer galbeedka ayaa sheegay inay heleen xogta la xiriirta abaabulka weerarkaasi ka hor inta uusan dhicin dowladda Kenya ayaa la sheegay in lagu wargeliyay xogta weerarkaasi shabaab ay ku qaadeen talaadadii hotel weyn oo ku yaal bartamaha magaalada Nairobi ee dalka Kenya sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay bishii November ee sanadkii la soo dhaafay in dowladda Kenya ay u sheegeen macluumaad ku saabsan inuu jiro weerar shabaab ay damacsan yihiin oo laga fuliyay gudaha dalka Kenya waxa ay sheegeen reer galbeedka in dowladda Kenya sidoo kale lagu wargeliyay suurtagalnimada weerar shabaab ay ka fuliyaan goobihii lagu dhigay markaasi dhalashada sanadka cusub ee 2019 saraakiil ka tirsan sirdoonka reer galbeedka ayaa sheegay dowladda Kenya inay dhagaha ka fureysato arrintaasi oo jawaab aysan ku celin reer galbeedka fariinta amni u keenay wargeyska The Guardian ayaa sheegay in saraakiisha ugu sareysa dowladda Kenya dhowr jeer loo gudbiyay xogta ku aadan weerarkan oo ay reer galbeedku la socdeen laakiin aysan muujin feejignaan dheeriya taas oo sababtay in shabaab weerarkan ay fuliyaan sargaal ka mid ah sirdoonka Kenya ayaa isna The Guardian u xaqiijiyay in xogaha weerarkan ay heleen laakiin shabaab ay bedeleen halkii markaasi bartilmaameedku ahaa sargaal kale oo ka tirsan sirdoonka Kenya ayaa AB waxa uu sheegay in xogta weerarka ay hayeen laakiin hay'adaha amniga Kenya ay ku wareereen halka lala beegsanayo isla markaana taasi ay sababtay in shabaab sida ay wax u rabeen u fulshaan
saraakiil amni oo ka tirsan sirdoonka reer galbeedku waxay sheegeen haddii ilaamaha amniga Kenya ay qaado lahaayeen fariimaha loo gudbiyey in laga hortagi lahaa weerarkan khasaaraha badan dhaliyay. shabaab ayaa marar badan weeraro khasaare badan geystay waxay ka fuliyeen gudaha dalka Kenya, waxaana ugu xasuus badnaa kii Westgate iyo kii laga fuliyay jaamacadda Garissa oo in ka badan 150 arday hal mar lagu dilay. sidoo kale ciidamada amniga Kenya waxay sheegeen inay bilaabeen baaritaano ku aadan sida loo soo qorsheeyay weerarkaasi talaadadii dhacay iyo weliba soo qabashada cid kasta oo ku lug lahayd. dowladda Kenya waxay sheegtay weerarkaas inay ku dhinteen 14 qof, ha yeeshee waxaa la rumaysan yahay dad ka badan 20 ruux inay ku naf waayeen. ayadoo sidoo kale Kenya sheegtay 700 oo qofood in laga soo badbaadiyay hoteelka. wararka aan helayno waxay sheegayaan in 2 qof oo lagu tuhunsan yahay ku lug lahaanshaha weerarkaas ciidamada amnigu ay soo xireen. qof ka mid ah labadan shakhsi ee lagu tuhmayo weerarka inay ku lug lahaayeen waxaa laga qabtay xaafadda Soomaalidu ay degan tahay Islii, waxaana ciidamada amnigu ay weydiinayaan su'aalo la xiriira kaalintay ku lahaayeen fulinta weerarkaasi. inta badan marka weerarada qorsheysan ay ka dhacaan gudaha dalka Kenya, ciidamada amniga waddankaasi howlgallada ugu badan waxay ka fuliyaan xaafadaha Soomaalidu ay u badan yihiin, gaar ahaan xaafadda Islii, halkaas oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ka qabtaan. kadib weerarkii talaadada aynu soo dhaafnay ka dhacay Nairobi, cabsi badan ayaa soo wajahday dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya, waxaana ay ka baqdin qabaan howlgalladu inay saameeyaan. wahagag daawadayaal, warqaad ayaad nagala socotaan qaybihii hore ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa. meel kastoo aad dunida ka joogtaan xilli wanaagsan ayaynu idin leenahay. dowladda dalka Turkiga ayaa mar kale ballanqaad muhiima u sameysay dowladda Soomaaliya. wafdi uu hogaaminaya wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow oo ku sugan magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga ayaa la kulmay wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Suleymaan Soolyo, iyagoo ka wada hadlay horumarinta xiriirka labada waddan. waxaan xoogga saaraynaa adkeynta iyo xiriirka ka dhexeeya labada dal, iskaashiga dhanka horumarka, amniga, gargaarka bini'aadanimada iyo weliba kobcinta dhaqaalaha, ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha dalka Turkiga. mas'uuliyiinta labada dhinac ayaa muujiyay sida ay ugu qanacsan yihiin heshiisyadii labada dowladood sanadii dhamaatay 2018 ay gaareen, isagoo wasiirka arrimaha gudaha Turkiga uu sheegay inay xoojin doonaan kaalmada ay siiyaan Soomaaliya ee la xiriirta dhanka amniga iyo weliba arrimaha bini'aadanimada. Abuukar Islow, wasiirka amniga Soomaaliya, ayaa dhankiisa u mahad celiyay dowladda Turkiga isagoo sheegay in garab istaag wanaagsan ay Soomaaliya Turkigu siiyeen. Soomaaliya marnaba ma iloobi doonto caawinaadii garab istaagga ee Turkiga arrimaha bini'aadanimada. sanadii 2011 waxay noqotay dowladdii ugu horeysay ee xilligaasi ka jawaabtay xaalad adag oo Soomaaliya ay ku sugneed, mana iloobi doona, ayuu yiri wasiir Islow. wasiirka amniga Soomaaliya ayaa wasiirka arrimaha gudaha Turkiga waxa uu ku casuumay Soomaaliya isagoo ka gudoomay isla markaana sheegay inuu imaan doono. ugu dambeyn, wasiir Islow ayaa sheegay Soomaaliya inaysan iloobi doonin kaalmada ay siiyeen shacabka iyo weliba dowladda Turkiga, mar walbana ay diyaar u yihiin haddiiba Turkigu u baahdo caawinaadooda. dowladda Turkiga ayaa ka mid ah dowladaha sida weyn u taageera Soomaaliya, iyadoo saldhigga ugu weyn ee meel ka baxsan waddankeeda uu ku yaal magaalada Muqdisho, sidoo kalena ciidamo badan u tababarta dowladda Soomaaliya. wahagag daawadayaal, weli warqaad ayaad nagala socotaan qaybihii dhexe barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa. dowladda Qatar ayaa taageero militari siisay dowladda Soomaaliya, iyadoo saanad ciidan iyo gaadiidkii ugu badnaa maanta ku wareejisay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. dowladda waddanka Qatar ayaa dowladda Soomaaliya ugu deeqday 68 gaadiidka gaashaaman ee dagaalka kadib munaasabad lagu qabtay dekedda magaalada Muqdisho. munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya, taliyaha ciidamada xoogga dalka iyo saraakiil amni oo ka socda dowladda Qatar, isla markaana dhawaanahan ku sugnaa magaalada Muqdisho. munaasabad kooban oo lagu qabtay dekedda magaalada Muqdisho ayaa mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya iyo Qatar ku kala wareegeen gaadiidkan gaashaaman. wasiirka gaashaandhigga dowladda Soomaaliya oo gaadiidkan ka gudoomay dowladda Qatar
ayaa kaga mahad celiyay waxaana uu sheegay inay qayb ka tahay dadaalada Qatar ay ku doonayso in Soomaaliya ciidamo awood leh hesho. wasiirka oo u mahad celiyay dowladda Qatar waxa uu sheegay gaadiidkan inay gaarsiin doonaan goobaha loogu talagalay ciidamaduna si siman ay ugu howlgeli doonaan. runtii maanta waxay inoo tahay maalin aad iyo aad u qiimo badan oo u farxad badan waxaana sharaf weyn ii ah inaan u mahad celiyo anigoo ka hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo kan ra'iisul wasaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliyeed guud ahaan waxaan ugu mahad celinayaa amiirka dawladda aan walaalahan u nahay ee Qatar Sheekh Tamiim bin Hamad Al Thani iyo xukuumaddiisa dadaalka ayaan walaalaha nahay dadaalka ay nagu taageerayaan sidii aynu sharaftii aanu ku lahayn caalamka u soo ceshan lahayn sida dhaqsiyaha badan taas aan micnaheeda tahay inay maanta ay nagu taageereen qalab oo ciidan oo baahidiisana ay maanta ayna haysay una baahnaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qeybahiisa kala duwan runtii waxay tahay taariikh lam ilaabana qalubteena aysan ka tirmeynin insha Allah ta'ala waxaana filaynaa ama rajaynaynaa aan ka rajaynaynaa dalka walaalahan ee Qatar in taageerada maanta ay muujiyeen ay sii wadaan si annaga aan u gaari lahayn hadafkeena oo ah in sharafkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed ay lahaan jirtay ay ku soo laabato gaar ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed tanna waxay daliil ka tahay dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taasoo hadafka uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Ali Khayre oo runtii dadaal badan ku bixinayaan in sharafkii iyo karaamadii uu soo laabto ee dibna loo dhiso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed munaasabadan oo maanta aan kula wareegayno qalabkan ciidan waa munaasabad runtii ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto ay ku farxi karto annagana gaar ahaan ka wasaaradda gaashaandhigga runtii aad iyo aad aan ugu faraxsannahay waxaan rabaa sidoo kale in aan u mahad celiyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo asigana sidoo kale runtii muujiyay dadaal aad iyo aad u xooggan inaan helno qalabkan ay nagu deeqaan runtii asna qayb ka noqday runtii aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa waxaa sidoo kale aan rabaa inaan u mahad celiyo dadkii ka soo qayb galay xafladda nala joogo iyagana sidoo kale waan u mahad celinaya waxaan rabaa laakiin aan rabaa inaan shacabka la wadaago insha Allah ta'ala waxaa la gaaray waqtigii dalkaani nabadgelyadiisii iyo sharafkiisii iyo karaamadiisa ay soo laaban lahayd waana waqtigii waxaa la gaaray laga adkaan lahaa dadkii dhibaateeyay ama dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed runtii mar walba u taagan xilliga aan iska dhicin lahayn ummadda Soomaaliyeedna dhibaatada ay ku hayaan ku dulqaadi lahayn ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna waxay diyaar u yihiin aynu isku diyaarnay u yihiin ayagoo oo maanta haysta hogaamiya taliye runtii khibrad u leh arrimaha ciidanka runtii waxaan filaynaa waqtiga dhow inaan gaarno ama aan gaarsiino shacabka Soomaaliyeed wax ay ku farxi karaan ay niyadoodana ay jeclaan doonto aad iyo aad u mahadsantihiin hadal ilmaan kuma jiro safiirkeena Qatar runtii oo madaalaha sidoo kale waqti badan ku bixiyay arrintan inay suurta gasho safiir Xasan aad iyo aad u mahadsan yahay saraakiisha ka socday dowladda Qatar ee ku wareejiyay Soomaaliya gaadiidkan military waxay dhankooda sheegeen inay kordhi doonaan taageerada ay siiyaan Soomaaliya
qatar waxay ka mid tahay dowladaha xilligan u dhow dowladda Soomaaliya waxaana ay sheegtay inay ka dhisi doonto dhanka ciidamada gaar ahaan sirdoonka. dowladda uu hogaamiyey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya waxay ku dadaalaysaa in dib u dhis lagu sameeyo ciidamada xoogga dalka si ay awood u yeeshaan ilaalinta amniga kadib marka ciidamada AMISOM ay ka baxaan. guud ahaan daawadayaal waa naga intaas barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad intaynu mid lamid ku kulmayna haddii uu alla idmo nabadgelyo. ku soo dhawow warqaad press haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar siina share garee haddii aad nagu cusub tahayna subscribe saar si aad u hesho muuqaallo cusub fikirkaadana noogu soo gudbi qaybta commentiga aad baad u mahadsantahay.